mahadsanide kusoo dhawaada wararkaanu idinka hayno bariga Afrika oo si toos ah idinka imanaya studio Kalsan TV ku leeyahay magaalada Nairobi. Warkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Iglan Saalax. Wararkaanu idinka hayno bariga Afrikana waxa kamid ah baarlamaanka dalkani Kenya ayaa ku goodiyay inay shaqada ka eri doonaan wasiirka waxbarashada ee dalkani Kenya. Shan qof ay ku jirto siyaasiyada caan ah ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay Nadwa Road ee magaalada Nairobi. Wiil arday oo da'diisa lagu qiyaasay 15 sano ayaa isku daldalay countiga Khalifa kadib markii laga bixin waayay lacagtii uu ku gal lahaa iskuulka sare. kuwaas waxay kamid ahaayeen wararka ugu doorka roon ee ka dhacay bariga Afrika. haatan iyagoo fidsan xildhibaanada baarlamaanka dalkani Kenya ayaa ku goodiyay inay shaqada ka eri doonaan wasiirka waxbarashada ee dalkani Kenya. faahfaahinta warkaasina waxa inoo haya waryaheena Cabdixakiin Siciid. mid ka mid ah xildhibaanada aqalka baarlamaanka ee Kenya oo laga soo doorto koonfurta Rift ayaa ku dhawaaqay inuu golaha sharci dejinta loo hortagi doono mooshin ka dhan ah wasiirka waxbarashada ee dalkani Kenya Mr. Jacob Kimani kadib markii uu ku eedeeyay inuu waajibaadkiisa shaqo gudan waayay. mudanahani oo ah xildhibaanka degmada Keep Kaylon Mr. Joseph Limo ayaa hoosta ka xariiqay afar waxyaabood oo uu ku sheegay inuu u adeegsan doono mooshinka ka dhanka ah wasiirka waxbarashada ee dalkani Kenya, taasi oo uu ku doonayo in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa William Ruto ay xafiiska ka diraan wasiirka waxbarashada ee dalkani Kenya Mr. Kimani. isagoo afarta shay ka warbixinaya ayuu Mr. Lamo waxa uu sheegay in wasiirka waxbarashada uu markii ugu horeysay mamnuucay kala sareynta darajooyinka ardaydii imtixaanka 2014 gashay kaasi oo loo yaqaan KCPE-da. sidoo kalena uu ku guul daraystay isfahan dhexmara isaga iyo macallimiintii dhawaan ku dhawaaqay shaqo joojinta. sidoo kale mudanayaal ka tirsan xisbiga URB ayaa taageeray mooshinka ka dhan ah wasiirka waxbarashada ee dalkani Kenya. marka laga soo tago eedaynta xildhibaanada ka tirsan xisbiga UPR, wasiirka waxbarashada ayaa horay u sheegay inuu dadaalo ugu jiro wax ka qabashada caqabadaha iyo sidoo kale cabashooyinka ka soo yeedhaya bahda waxbarashada ee dalkani Kenya. Mr. Kimani, wasiirka waxbarashada ee dalkani Kenya, ayaa dhawaan soo saaray amar uu ku bixinayo in maamulayaasha iskuulada ku yaala dalkani Kenya ay joojiyaan lacagaha ay ka qaadaan ardayda maadaama ay wasaaradiisu u qoondaysay lacago fara badan. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya Mr. William Ruto uu maalmo ka hor amar ku bixiyay inaan wax lacaga laga qaadi karin ardayda dhigatay iskuulada ku yaala dalkani Kenya ee ay dawladdu leedahay. Cabdixakiin Siciid, Kalsan TV, Nairobi. Shan qof ay ku jirto siyaasiyada caan ah ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay Nadwa Road ee magaalada Nairobi. faahfaahinta qodobkaasina waxa inoo haysa wariyaheena Farduus Axmed Bedel. faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa shil gaari oo qasaare geystay oo shalay ka dhacay countiga Homa Bay kaas oo dhowr ruux ay ku geeriyoodeen. 5 ruux oo ay ka mid tahay siyaasiyad caan ah oo ka tirsan xisbiga ODM ayaa ku dhimatay shilkaas oo ka dhacay deegaanka Road Company ee ku yaala wadada Indewa Road. hay'adda xilka gudoomiyaha xisbiga ODM ee countiga Homa Bay Mrs. Monica Amola ayaa ku geeriyootay dhacdadaasi. Mrs. Amola iyo 4 ruux oo kale ayaa ku dhintay halkaas kadib markii gaari ay ku safrayeen uu ku lug yeeshay shil ka dhacay suuqa Onchurch Market ee ku yaala wadada isku xirta Homa Bay iyo Indiwa. shilka khasaaraha geystay ayaa dhacay xalay abaara maqribkii siyaasiyada ODM xilligaasi oo ka sii laabanaysay isu soo baxa ololaha doorashada oo ay u sameynayeen musharaxa ODM u tartamaya kursiga senatarka Homa Bay. dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ah 2 xubnood oo kale oo ka tirsan ODM. gofanaha Homa Bay iyo ku-xigeenkiisa ayaa ku qeexay dhimashadan mid waxyeelo ku ah countiga. Fardoos Axmed Bedel, Kalsan TV, Nairobi. wiil arday ah oo da'diisa lagu qiyaasay 15 sano ayaa isku daldalay countiga Khalifa kadib markii laga bixin waayay lacagtii uu ku gal lahaa dugsiga sare ee dalkani Kenya. waxa isa soo taraya walaaca ku aadan ardayda dhamaysatay iskuulada hoose dhexe ee u xaqal taagaya inay ku biiraan dugsiyada sare balse aan nasiib u yeelan inay helaan dhaqaalaha ay ku gali lahaayeen iskuulada sare.
sharaxaad dheeri oo ka soo baxaysa dhacdo maalin hore ka dhacday koontiga Khalifa kaasi oo wiil arday isku deldelay sababo la xiriira caqabado kala kulmay si wadida waxbarashada dugsiga sare wiilkan oo ka soo jeeda qoys degan xaafada Maliichi ee deegaanka Raabi oo ka tirsan koontiga Khalifa wararka ayaa sheegay in ardaygani uu geed ku xidhay xadhi kadibna isku deldelay dhacdadan oo noqonaysa midii ugu argagax badnayd dadka deegaankaasi sababta uu falkan u sameeyay ardaygani ayaa lagu tilmaamay markii uu dhawaan dhameeyay waxbarashada dugsiga hoose dhexe hase ahaatee uu ku guul daraystay inuu fursad u helo ku biirida dugsiga sare taasi oo aad u daneynayay ardaygan oo lagu magacaabi jiray Alex ayaa sida wararku sheegayaan wuxuu darajo sare ka haystay imtixaadka shahaadada dugsiga hoose dhexe KCPE-da kaasi oo uu galay sanadkii la soo dhaafay waalidiinta ayaa loogu baaqay inay ka hortagaan falalka noocan oo kale isla markaana caruurtooda la wadaagaan fikrado fiican waa tahay daawadayaal intaasi waxaan nagaga dhan wararkii aanu idinka haynay bariga Afrika oo idin la socodsiinaya anigoo Iglan Saalax iminkana u diyaar garoobo xubinta ciyaaraha warka Kalsan TV oo idin la socodsiin doono wariyaheena Mawlid Warsame kulane